anigu magacaydu waxa la yiraahdaa Sheekh Axmed Cabdi Deero waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha ku saabsan petitionka la sheegay magaaladan dhexdeeda laga aasaasay oo la rabo in lagu qaado dawladda cusub hadda soo gashay oo county-ga Wajeer زائد ayaan ugu xunahay arrintaasna ayada raallina kama nihin wax faa'iido ay keenaysan uma aragno sababtoo ah petition la qaado hadda Wajeer ku uma aha wax faa'iido laga gaarin ma jirin kii hore loo qaado wax faa'iido laga gaaray jirin lacag iyo waqti baa la lumiyay shacabkana waa la laayay shacabka ayaa meel cid lagu qooracay haddana tii ayada dunbaa leeyihiin tii ayada ku dhaqaaqayna wax faa'iido laga gaarayna ma leh marka waxaan ku boorin lahaynay tolka in maartay loo dhimriyo wadanka loo dhimriyo shacabka loo dhimriyo dadka masaakiinta ah haweenka garab raratada loo dhimriyo naxariis loo muujiyo laga daayo dacwada iyo buuqa qaylada laga daayo ninka hadda soo galay sidoo sheegay wax uu diidiyay hadda ma leh kii soo dhisay kii aan soo dhisin diyaar uu leeyahay inuu la macaamiloodo oo la dhaqmo wax kasta oo la qabsado haddii dacwo la bilaabo koow shacabku baa la laaynayaa mooyaan waxay ka faa'iidayaan waxay maartay laga faa'iiday malaha shacabku baa meeshiis taagnaanay maartay jugjug oo meeshaada joog u bay ahaanaysa sheekada marka taasna kuma noma gashata iyada noma qalanta taas iyadoo ku baabaayna shacabka ku baabaaya marka waxaan codsan lahaa walaalayaal dadka maartay hawshan wada in la joojiyo loo turo tolka loo turo oo magaalada loo turo dawladda cusub waxaan u baaqayaa maadaama ilaahay ayagu soo gali maanta lagu dhaaray ninka la Axmed Jiir inuu cadaalad ahaado ummadda cadaalad u muujiyo sidii horaanba loogu amaanay wax qabad loogu amaanay inuu ka sii wanaajiyo maxaa Soomaalidu waxay tiraahdaa haddaad tagayso magaca ka haro haddii aad tagayso magaca ka haro waari meeysid magaca ka haray Soomaalidu tiri marka saa darteed waxaan Jiir ku oran lahaa Jiirow balanta aad qaaday 60% 80% intaad oofin karto oofi shacabka Wajeer weyna ee county ku nool dhammaan waxaan ugu hambalyeynaa ayaa waxay tahay waxa la yiraahdaa bahalka la yiraahdo la daayga waxa la yiraahdaa laabtu isku ogyahay markuu soconaayna maxaa la moodaa inuu kala socdo waxaan ogsoonahay marka koobaad 5 sano baan soo marnay marka 20 baan soo marnay dhamaanteen aan iscaafina aan soo hambalyeyna waxa kale oo ogsoonahay guush soo hoyatay ama gafanaaga guuleystay Wajeer oo dhan ayaa soo guuleystay waana u hambalyeynaynaa waana u dabaaldegaynaa waxaan ogsoonahay marka laabtaan isku ognahay aan leeyahay waxaan dhahaynay sub county kastoon joogna ilaahu Jiir noo soo gali ama mid la mid noo soo gali nin maamul wanaagsan u baan raadinayna marka dhamaan waxaan leeyahay hambalyo waxa ka shacabka ugu baaqaa aan ilaalina amniga qof kasta waxa ka saaran xil amniga aan ilaalina waxa kala oon fara walaalaha guuleystay oo ku guuleystay county-ga sida gafanaaga iyo dibitigiisa waxaan faraa magaaladan waxa ku nool 6 deegaan baarlamaaneed dadkoodii baa ku nool magaaladan waxay u baahan tahay 3 badbaado bay u baahan tahay badbaadada koobaad oo magaaladan looga baahan yahay waa biyo Wajeer waxa looga guurahay biyo la'aan waxa laga rabaa inaad biyaha u istaagtaan badbaadada labaad oo magaalada u baahan tahay waxa way nadaafad waa arkayseen Wajeer waxay u laabatay district marka ay ahayd qashinka baa la gubahayaa waxaan rabaa inaad u istaagtaan oo ugu baaqaan nadaafadda tan saddexaad waxa way magaaladan waxay leedahay gudaheeda 10 location oo square oo magaaladan dhexdeeda bay leedahay 10 location oo magaaladan dhexdeeda dadkeeda waxay u soo shaqo tagaan townkan aniga waxaan ahay nin taksiila ah waxaan dhigtaa halkan ikutoorteeda oo municipality sameeyso taxi bus back baan dhigtaa malaha magaaladan waxa la yiraahdaa public toilets malaha musqulo malaha waxaan ogsoonahay dadka ka soo taga xaafadaha ugu fogfog halkan meel ay saxaro u aadaan ama ay ku kaadiyaan malaha waxaan u baahannahay dawladda inay noo hagaajiso public toilets waxaan ka rabaa walaalaha soo galay oo guuleysay public toilet inay noo dhisaan annagana 10 ka shilin waan ku bixinaynaa waxaan leeyahay dhamaanteen aan gacmaha isqabsanna aan hore u wada duruqna reer Wajeer dhamaana waa u mahad celinaa magacayga waa Badin Xuseen Maxamuud waxaan ka hadlayaa arrintan ku saabsan wareegana oo socdo magaalada dhex wareega petition la sheega petition horaad noo gubi dadka horaas gubi waa ku kululaanay dhibaa naga gaaray waxa kaloo jira petition kan bariyahan hatta ki cadaalad ku soo leeyahay petition lagu qaada waanu gubi hay'ad haddaas nin madow inta ka istaaga petition lagu qaada Soomaalida iidi joogto Wajeer joogta kursiga soo gashay petition lagu qaada war petition kan inta daga soo galay way horta
kursi waa joogi jirnay waqtiga ilaaha maarta kiyata saana u joogi jirnay petition ma jiri jirin qafaa geli jiri waana dhamaysan jiri war balaayadan hadda noo imaaday oo qofka markaad soo galo petition la qaada leeyahay naga joojiye anaga waa kullaan dadweynaha dhib qaba maxay yeelay dadkan petition aan wadnaa leh Nairobi ay joogaan guryooda ay saaxanayeen meesha waxa way ninka looga tagaa dadka jooga way anaga meesha waa ku rafaadnay nima soo galay had kooxa soo gashay ninka ma kooxa soo gashay kooxda soo gashay waxaan rabnaa wax qabad inaad dhulka wax u qabatid dhalinyaro joogto shaqalaada bilcaan joogto shaqalaana odayaal joogto maartay wax qabad u baahan anaga waxaan rabnaa wax loo qabatid petition kan dhiga joojiyo petition meel waa mudan tahay meel lama mudno horta nabadgelyada ha la ilaaliyo nabadgelyada noo daranne ha la ilaaliyo maxkamadda horta ay noqonaya petition ha noqdo laakiin gacan ka hadal aad dhicin waxa soo heray walaalkay xasan safarta damay ku fudeyn waa markii koobaad oo siyaasad qaadire haba sharabin baashaas markii koobaad oo siyaasad u kacdo waa kugu talay aniga biri odayaada noqon lahay haba gelin ma haba maqashin taas waxa soo heray aniga wajaaristi aan ka ridi rabay electionkayga tahay madaafiicda dhacaysay 2 milyan oo dir ay ahayd kama dhicin wajaaristi qorfaar wot kama dhicin election kama dhicin qorfaar wot election dawladda walaalkan Dr. Xasan waa nin sumcad leh aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay marka haddii uu barnaamijkaas ku jiro waxaan rabnaa shacabka reer Wajeer haddaan nahay inuu ka joogo inuu wax yar ka joogo dadka aad buu u daalan yahay dadka uu daalan yahay marka inay la daayo buuqa iyo jaamka iyo dadkana loo danee seen maqlay walaalkay Axmed Jiir markuu soo galay meesha wuxuu la hadlay dhammaan odayaashii la taagnaa oo dhan walaalihiisa ilaa kiik siinka ka qaban waayay ma Dr. Xasan ninka ugu horeeyay uu tangaasay waa inuu ka qabtay siinka marka waxaan leeyahay walaalkay ninka la yiraahdo Dr. Xasan nin oo maartay sumcad wadanka kule waaye waxaan ka codsanaynaa haddii uu barnaamijkaas ku jiro inuu ka joogo